بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عشر كيني ستحات كسور دوادا اونلاين نقادن دونو رقاسيو انغو استعمالينا data management انغو اسكوتينا data انو معمولو working with an external data file كان استعمالنا نو يهي ميد external data management كاينو سمين دونو يقاوب كاينو سمين دونو يستبس كاينو راعي دونو انتبه waxaynu ku qaadan doonaa lecture-keena maanta insha allahu tacaala. qodobka koobaad aynu sameynaynaa waxa weeyaan waxaynu tegaynaa oo aynu kusoo daraynaa arda shape file la yidhaahdo Africa base map. shape fileka la yidhaahdo Africa base map baynu kusoo daraynaa. saan ugu soo darno waxaynu tegaynaa data deetana datadii waxaanu kasii tegaynaa cartois, waxaanu ka tegaynaa geo1, waxaanu kasii dooranaa Africa, waxaanu dooranaa Africa base mapka labaad. waxaanu iska sugaynaa inta uu dhamaystirmayo ee uu maapkeeni inoo soo gelayo the user interface. qaybtaasi waxaa la yidhahdaa table of contents, halka layeradu inoo imanayaan, halkay layeradu ay inoo imanayaan. marka hadaba Africa uu inoo soo dhigo waxaynu ku save gareynaynaa magaca la yidhahdo Africa 02. waxaynu tegaynaa file, dadna waxaynu tegaynaa save as. mar walba oo aad save garaysanayso maap cusub waxa fiican inaad isticmaasho save as, sababtoo ah kii horena waxba kaaga bedeli maayo. macnaheeduna waxa weeyaan wuxuu kuu sameynayaa mid lamid ah kana hadda ku shaqeynayso. sidaa daraadeed waxaa wacan mar walba inaad isticmaasho save as. waxaad u bixisaa Africa 02 dadna waxaad taabataa save. waxaanu tegaynaa data frame properties. projectionkeena waxaanu ka dhiganaa WGS 1984, halka aynu kilometers ka dhigi doono scale-keena iyo display scale-keena aynu ka dhigi doono. saynu u tagno data frame properties waxaad tagaysaa view, dadna waxaad ka dooranaysaa data frame properties, waxaad ka dooranaysaa data frame properties, waxaad kasii dooranaysaa coordinate system, halkaasi ood ka dooranayso WGS 1984. saynu bedelno scale-keena waxaan tagnaa general, halkaa decimal degree ay ku qoran tahay baa waxaan ka dhigayaa kilometers, dadna waxaan leeyahay apply. okay, maapkeenii wuxuu noogu soo baxaya qaabka noocaas oo kale ah. waxaan doonay inaynu layerka ka bedelno oo uu inoo akhriyo halka ay ku qoran tahay Africa base map ay akhrido African continent, ay inoo akhrido African continent. halka African continent halkaas ay ku qoran tahay Africa base map, halka Africa base map ku qoran tahay inay ka dhigna African continent. hal klik oo kaliya ku dhufanayaa, dadna waxaan ku qorayaa African continent, aan leeyahay okay. we want to rename the layer Africa base map. waxaan doonaa inaynu ka bedelno magaca Africa base map waanu ka dhigna African continent. mar labaadba waxaan tegaynaa right click baan ku dhufanaynaa, waxaan tegaynaa properties, African continent right click ku dhufo, African continent right click ku dhufo, right click ku dhufo ama midigtaas ku dhufo, dadna waxaad tagtaa properties. waa halkii magaca laga bedelayay. halkaa general ay ku qoran tahay iyada lafteeda waynu ka bedeli karnaa African continent. haddaynu ku qorno African continent awood baynu leenahay, apply, dadna okay. intaa horeynu soo sameynay dhowr jeer hore. haddaba casharkeena maanta wuxuu ka bilaabmayaa, sessionkeena wuxuu ka bilaabmi doonaa, waxaanu sameyn doonaa waxa la yidhahdo append ama add, laba field ama laba table oo
kala duwan oo kala jira laba excel oo kala duwan baynu isku daraynaa. waxaanu sameynaa join isku darid and relate. join and relate inaynu isku darno laba table baynu sameynaynaa. shaqada koobaad aynu qabanaynaa waxa weeyaan marka koobaad waxaanu sameynaynaa export data. export data waxa weeyaan macnaheedu waa copying, waa duplication. haddaan idhahdo waa data export data, macnaheedu waxa weeyaan waa file kan aan isticmaalayo ama map kan aan isticmaalayo map lamid ah ii copy. saddexaad aynu isticmaalayna waa symbology oo ah inaynu sameyno colors kala duwan iyo category ama quantity kolba datadeedu noocay tahay inaan ugu qaybiyo. marka koowaad waxaan sameynaa join and relate. table-keena saan u furo African continent, right click ku dhufo, dadna waxaad tagtaa open attribute table. table-kaygu waa kan. table-kaygu wuxuu ka kooban yahay mid la yidhaahdo identification number iyo shape iyo country name iyo ISO kale oo international standards organization ama munadamat almacaayir alcaalamiya, munadamada inta badan sameysa macaayirta, codeska sameysa, wadanka magaciisii iyo koorar kale. WHO dana isticmaasha regional, waxay u taqaano wadankaas regionalka uu ka tirsan yahay. waxa muhiim ah inaad fahanto halkaa country name. country name waa maxay? country name waa variable. Algeria, Angola, Benin were values. variable ku waa anything that can have different values. wuxuu qaadan karaa values kala duwan. markaan researchka joognay waxaanu naqaanay inay wax kastoo adduunka jooga ay u kala baxaan laba qaybood. waxa la yidhahdo waa variable iyo waxa la yidhahdo constant. variable ku wax kasta oo qaata different values. magacaaga oo kale, magac name ama age. variable kale age wuxuu noqon karaa 5, wuxuu noqon karaa 10, wuxuu noqon karaa 15. laakiin cadceedu waxay ka soo baxdaa galbeed, waxay ka soo baxdaa xaggaasay ka soo baxdaa, xaggaana way ka dhacdaa. iyadu waa constant. macna mar walba waxay ka soo baxaysaa cadceedu galbeed bay ka soo baxaysaa, mar walbana waxay ka dhacaysaa bari bay ka soo baxaysaa, waxaanay ka dhacaysaa galbeed bay ka dhacaysaa. saa daraadeed it's constant. waxyaalaha qaar isma bedbedelayaan, waxyaalaha qaarna way isbedbedelayaan. haddaba variableskaasi country name, ISO code, waxaynu kusoo daraynaa variable cusub oo la yidhaahdo, ayaynu maalinta hore kusoo darnay, waxaynu kaga soo darnay intaynu tagnay table options, baynu tagnay add field. maanta waxaan isku dayi doonaa inaynu ku xidhiidhino mid labaad, inaynu kusoo darno mid labaad oo si automatic ugu soo darno halkii aynu kaga qorqori lahayn. waxaanu sameynaynaa KBC aynu ku daraynaa. Carto estimate data. Africa population ka. Africa population ama life expectancy ga wadamadani, wadan waliba cimri iftiraadigiisa. iminka halka country name baa ku qoran: Algeria, Angola, Benin, Burundi, Chad, Comoros. muxuu sameynayaa software-kani? wax kala sameyn maayo, wuxuu isbarbar dhigayaa Algeria. wuxuu odhanayaa Algeriadaas iyo Algeriada isbarbar dhig. meel kastoo Algeria la mid tahay waxaad ii keentaa life expectancy-ga iisoo koobiye, si automatic ah iigu soo koobiye. laakiin deer waa inay labadan fiilka country name iyo fiilkan country name wana isku mid noqdaan. Algeria wana isku mid noqdaan. Angola iyo Angola, Benin iyo Benin, Burundi, Comoros. xataa hadday capital letter ka bilaabmo kan waa capital letter ka bilaabmo. haddii ay hal xaraf u kala duwan yihiin waxba kuma soo qaadayo oo waxba kuma soo koobiyanayo. aynu bilowno oo aynu sameyno. waxaan tegaynaa table options, dadna waxaan tegaynaa join and relate. waxaan tegaynaa join. maxaan idhi mar labaad idinku celiyo,
waxaan tegaynaa table option, dadna waxaan tegaynaa joins and relates, dadna waxaan tegaynaa join. waxay noo soo baxayaa windowgan. halkaas sare waxaan ka dooranayaa ka aan doonayo inuu joinkaygu uu ku base garaysnaado oo country name ka aan doonayo inaan ku dabaqo. kanna waxaan soo qaadanayaa kii aan rabay tablekii hore ee aan rabay inaan ku xidhiidhiyo. waxay noogu jiraa kani carto is markaynu joogno daatada aynu tagno carto is wuxuu ku jiraa data 02 data kay ku qoran tahay, wuxuu ku jiraa 02 data carto is 02 data. waxaad ka raadisaa country/pop.dpf ama .xls labadaa kaad ku dartaaba waa sax. dadna waxaan leeyahay okay. iminkaasi automatiga wuxuu inoogu soo daray country name iyo life expectancy. country name iyo life expectancy meelahaas ay nal ku qoran tahay macnaheedu waxa weeyaan sidii uu u qornaa magacu baanay u qornayn, sidii magacu uu u qornaa ayaan u qornayn. taba si automatic ayuu hal mar tablekeenii halkan yaallay excelka ahaa, tablekeenaas ayuu si automatiga inoogu soo koobiyey hal mar oo keliyaata. life expectancy to foldingkaas ayuu noo soo koobiyey oo halkan noo soo dhigay. haddana mar labadeed ku celiyay waxaan sameeyey waa markii koobaad sessionka nool ka bilaami weeyaan tani. join and relate ka saar, waxaad tidhahdaa remove join, remove all joins. aan idinku soo celiyay mar labaad intii aan sameeyey. kooda sameynaa waxay tahay labada table baynu isku xidhinaa. waxaan isku xidhinaa tablekan country name ay ku qoran tahay iyo tableka kale ee mapkeena ku jira. waayahay waxaan ku dhufanayaa African continent baan right click ku dhufanayaa. right click baan waxaan ku dhufanayaa African continent, then waxaan kusoo dhufanayaa open attribute table. Africa continent baan right click ku dhuftay, then waxaan ku dhuftay open attribute table kan ay furmay. ku xiga waa maxay? waxaan tagayaa table option, dadna waxaan dooranayaa join and relate. waxaan tagayaa table option, waxaan dooranayaa join and relates. join baan dadna kasii dooranayaa. intana waa saxiixo maaha, stepkaana waynu sameynay join and relate. waxaan kasii dooranayaa wata soo baxda join waynu sameynay. wuxuu isku xidhayaa laba table of one table of those of another through an attribute or field common to both tables. isagoo isticmaalaya attribute ama field ama variable labada ka dhexeeya table. variableka ama attribute-ka ama fieldka ka dhexeeya labada table imika waa country name. waa maxay? waa country name. kaasaa ka dhexeeya country name ay ku qoran tahay oo ka kalena country name oo ku jira ka kalena ku jira. markaas noo soo baxdo tableka noo soo baxay, halkan waxaynu ka dooranaynaa country name, halkanna waxaynu ka soo dooranaynaa daatada. marka koowaad aan galo waxaan gelayaa carto is, waxaan sii gelayaa data 02 data, dadna waxaan dooranayaa country/pop.dpf. waxaan leeyahay okay. si automatiga ayuu iigu soo daray. intaasaynu sameynay simbale. waayahay stepkaasi waynu sameynay waan filayaa. waxay noo dhiman step taas ah inaynu labadii table isku xidhno waynu sameynay. stepka labaad oo ah inaynu koobiyeyno, inaynu sameyno export data iyo inaynu sameyno symbology. waayahay export data
waxaan sameynaynaa right click baan ku dhufanaynaa export iyo copyintu dadna waxaan tegaynaa data dadna waxaan tegaynaa export data waxaanu bixinaynaa waxaan ku dhuftay halkaa yar ee browse folder ku taalo waxaanu bixinayaa Africa population halkaana waxaan ka dooranayaa shape file dadna waxaan leeyahay agana waxaan ka dooranayaa halkii aan ku save garaysan lahaa dadna waxaan leeyahay save wuu yaalay bedel dadna okay dadna waxaan leeyahay yes Africa population waxay markay soo dhigay labadan mid waa laba mid oo isku mid ah waa laba file labadan mid ama labadan map waa laba map oo isku mid ah oo identical ah kaliya waxaan sameeyay mapka hore African continent baan waxaan idhi waxaad iiga samaysaa mid la mid ah identical ah waxaan uga jeedaa mawjadadan kale maxay tahay in African continent mid la mid ah samaysto baan ka leeyahay waxaan doonayaa in kan open attribute table oo ay ku jiraan labadii xataa aan ku soo daray iyo kan cusub oo isna ay ku jiraan xataa labadii aan ku soo daray country name iyo life expectancy labadiiba ku jiraan kii hore ayaan doonay inaan ka saaro wixii aan ku soo daray ama joinkii aan ku sameeyay inaan sidiisii hore ku celiyo oo aan labadan table aanay ku jirin simply maxaan sameynayaa waxaan tagayaa table option dadna waxaan tagayaa join and relate dadna waxaan leeyahay remove join remove all joins labadiiba waan ka saaray sidiisii hore bay ugu noqday dadna waa right click baan ku dhufanayaa waan iska saarayaa hadda waxbay kama bedelin kan cusub aan samaystay African population isagu wuu ii leeyahay igama baxsana waana kaan doonayo inaan ku shaqeeyo بسم الله الرحمن الرحيم waan ka saarnay remove join baan nidhi dadna ka saaray qodobkii ugu dambeeyay symbology-ga ahaa baynu maraynaa waxaan ku dhufanaa right click dadna waxaan tegaynaa properties dadna waxaan ka sii dooranaynaa levels baan ka sii dooranaynaa oo magacyada ayaanu ku dul qoraynaa simply taa horeen u sameynay properties dadna levels magacyada baynu level garaynaynaa name country name iga dhig halkan waxaad iga dhigtaa tempa ka dhig apply halkaana tigta ii saar xaggaa sare dadna waxaad tirahdaa apply okay apply dadna okay halkaan markaan marayo waxaan ku noqonayaa mar labaad African population right click baan ku dhufanayaa waxaan tagayaa properties intan aan ugu cusub oo muhiim ah idinkana rabaa inaad dhow igu soo diyaarisaan assignmentkii afraad hal assignment baan noo dhinaan doonaa iyo hal casharo kale insha allahu tacaala dadna waxaad tagaysaa symbology marka properties ku soo baxaan waxaad ka tagaysaa quantities halkaa hore value ay ku qorantahay waxaad ka dooranaysaa life expectancy xagga value waxaad ka dooranaysaa life expectancy classeska waxaad iga dhigaysaa 5 deetana maxaynu sameynay hadda waa tan symbology baan tagnay dadna waxaan doortay quantities dadna waxaan doortay graduated calories dadna waxaan value-ga ka dhigay life expectancy inuu akhriyo waxaan ka dhigay classeskana waxaan ka dhigay 5 intaa waa samaysay soo ma waxaan idhi waxaan tagay symbology
waxaan tagay quantities, waxaan tagay graduated calories, halka valueska waxaan ka doortay life expectancy, classkana waxaan ka dhigtay 5 ila socda. halkan rangekeenu bedelaynaa, waxaynu ka dhigaynaa kaas koobaad, kaa labaad baan ku dhufanayaa, waxaan ka dhigayaa 49.99 iyo 79. kana waxaan ka dhigayaa 59.99999 79. kan waxaan ka dhigayaa 69.99999 iyo 79 baan ka dhigay. sigaadha dollar round garaynaya. lix ka dhiga 69 sorry mana 69.92345 waayahay. kaana sidiisa hore sigada wax kale maan samayn. ka labaad baan ka bilaabay, waxaan ka dhigay 49 iyo 69. 59 maan kili ku dhufto ayay saa noqonaysaa, dadna waxaan qorayaa 49.69 koow laba saddex afar shan lix iyo 59 iyo 69 69 iyo 69 7 ka u dambeeya iyo ka ugu horeeya waxba ka bedeli maayo. way halka ay level ay ku qorantay ka koobaad waxaan ku qorayaa n/a oo not available data halka laga maayo 0. halkan waxaan leeyahay waa less than 50 years old baan qorayaa saasuu noqor. click intaad ku dulfato less than 50 years. kan waxaan leeyahay 50 ilaa 60 50 ilaa 60 years. kan waxaan leeyahay 61 ilaa 69 61 ilaa 69 years. halkan kana uu ka yahay kan weyn ama leeg 74 years. kaas waa levelkiisna. intaa markaan sameeyo waxaan leeyahay apply, waxaan leeyahay okay. waxaan leeyahay apply, dadna waxaan leeyahay okay. waxaan leeyahay apply, dadna waxaan leeyahay okay. colorskan bedeli karayaa ilaa leedahay. tusaale ahaan oo kale halkan oo kale wuxuu ka dhigay ka blue buu ka dhigay wadamadaas. wadamada 74 ka green buu ka dhigay. kaana wuxuu ka dhigay yellow baa ka dhigana waxaad ka dhigtaa kana blue ka dhig caadiya.
bas waayahay deetana waxaan sameynayaa wax intaa ka dambeeya waxaan tegayaa view deetna waxaan tegayaa layout view waxaan tegayaa file deetna waxaan tegayaa page on print setup waxaan ka dhigayaa letter waxaan ka dhigay halka A4 waxaan leeyahay waa okay file then the page on print setup waa A4 halkan waa landscape then waxaan leeyahay okay waxaan leeyahay right click baan ku dhufanayaa bartanka maapka waxaan tegayaa distribute waxaan leeyahay fit to margins maapkaygii baan weyneynayaa mar yaree then insert there waxaan soo gelinayaa title waxaan leeyahay Africa life expectancy expectancy map macnaheedu life expectancy-gu wax kale maaha waxa weeyaan waa inta ama cumru liftiraadi soo lama yidhahdo wadamada Chinese-ka ama Japanese-ka oo kale waxaa ku dhintaan 90 average ahaan Soomaalidu waa 40 ama waa 50 wadamadaasi waa 70 tii oo maap lagu sameynayo marka imka wadamada ugu da'da badan leh oo wadamada waqooyiga Africa Egypt iyo Libya iyo Algeria Tunisia Morocco kuwaasi waa ugu badan waxaa ku soo xiga wadamada Mauritania Niger Sudan Ethiopia Kenya Tanzania Zambia Namibia Botswana Madagascar wadamadaas ku soo xiga wadamada kasii 50 ilaa 60 ka u dhaxeeya waa wadamada Soomaaliya Congo Angola South Africa kuwan dhacday laga hayn Western Sahara iyo Cote d'Ivoire ama Sahel Laaj waxaan leenahay change symbol imika waxaan sameynaynaa essential elementskii uu maap kasta lahaan jiray baynu si degdeg ugu soo daraynaa deedna waxaan idinka rabaa idinkuna inaad sidaas leeg samaysaan maapkaan sameeyey maap lamida oo arday walba magaciisu ku qoran yahay aad ii keentaan bismillah insert dadna waxaan tegayaa haddana text waxaan leeyahay maapkan waxaa lagu sameeyey University of Hargeysa change symbol baan leeyahay change symbol saddex shay bay bedeshaa waxay bedeshaa colorka waxay bedeshaa size-ka waxay bedeshaa fontiga hore uga hadalnay insert waxaan gelinayaa neat line border baan u sameynayaa background baan waxaan uga dhigayaa white baan uga dhigayaa ama waxaan uga dhigayaa gray apply insert legend waxaan leeyahay laba iga dhig column waxaad tiraahdaa next border u samee backgroundna waxaad iga dhigtaa white waxaad tiraahdaa next waxaad tiraahdaa next waxaad tiraahdaa finish
waxaad tirahdaa insert, waxaad soo gelisaa north arrow, waxaad tirahdaa okay, deedna weynee, waxaad isoo dhigtaa halkan, waxaad tirahdaa insert, haddana waxaad isoo gelisaa scale bar, midna waxaad tirahdaa okay, isna waxaad isoo dhigtaa xaggaa hoose, midna waxaad tirahdaa insert, haddana intaasun igu daa. in yaroo muhiima baan maanta ku daraynaa qofkii internet haysta weeyaan. waxaad ku dhufanaysaa halkaa hoose, deetana calaamadaas waxaan ku dhuftay halkaa arrowgeeda ku yaallo, deetana halkaasaan right click ku dhufanayaa, ArcGIS ay ku qoran tahay, waxaan leeyahay run connection test. waxaan intaan sameeyo ku xigtaan sameynaya waa maxay, waxaan tegay halkaa, waxaan leeyahay add base map, waxaan tegaya add base map, base mapyadan ayaan isticmaali karayaa. kaa isticmaal imagery with labels baan isticmaali karaa, waxaan isticmaali karaa mid streetiisa, waxaan isticmaali karaa mid topographiga, dhammaantood waa base map, waa map reference noqonaya. halkaa colorkaas iga ahaan lahaa uu ii noqonayo isagu reference fiican oo qurux badan. kaa OpenStreet kaa isticmaalba, waan iska yara sugaynaa intuu internetka yar culus. kolba mid baad eegi kartaan, oo adeeg haddana ka idinku qurux badan aad istiraadaan u fiican yahay bad isticmaali kartaan. waxaan sameeyey keliyata, waxaan ku dhuftay arrowga yar, dadna waxaan ku dhuftay calaamada ArcGIS ka right click, dadna run connection test baan idhi, internetka ku xiriirsaday, adhaatadaasaan soo furay arrowgeeda, arrowgan furaya, bartanka kama dhufanayo, arrowga yar ee xaggaasaan furayaa, ta labaad add base map ku taalo baan ku dhufanayaa, dadna imika waxaan dooranaya imagery with labels, balkaa ii door, kana iga saar, waan iska yara sugaynaa intuu internetku inoo hagaagayo ama uu soo baxayo, uu wareegaya weli. waa intii ugu dambeysay keliya tamarkan kaa uu noo dhammaystiro maapkeena waynu export garaynaynaa oo sawir baynu ka dhigaynaa. usbuuca dambe idinka waxaan idinka rabaa
intaa khariirada online internetka u baahan dad kusoo dartaanna waa bonus dheeraada iyo siyaado. haddaa kusoo dari weydaana ladikama rabo, laakiin waxaan idinka rabaa arday walba in uu soo sameeyo maab noocan oo kale ah. waana tusaya life expectancy-gii magaciisana noogu soo qoro. internetka yar culus laakiin wuu soo baxay kolley. inaga taakan iska remove karee si uu kugu soo baxo maabkaaga caadiga ah. ugu dambeyntii maabka inoo samaysmaya wuxuu noqon doonaa maab noocan oo kale ah. waa kan waxaa ka dhiman inaynu maabkeenii hadda aynu ka dhigano sawir ka dhigano export map. xarajimi waxaynu ilownay properties, right click dadna gradeskii new grid, next finish dadna apply. okay bas kasuma inaga maqnaa aan maabkeena hadaba daawacno file dadna export map. waxaad tirahdaa save. Africa
maabkeenii waxaan idin rabaa maab noocaas oo kale ah inaad ii keentaan sabtideeda insha allah sabtideeda usbuuc dhammaystiran baad haysataan saad u diyaarisaan maabkan oo kale stabisku waxay idinku qoran yihiin slideska idin siin doono iyo videogeenan aan idinku sharaxay labadaba. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.